mahadsanid shirkan wada tashiga ah wuxuu cudud ku leeyahay halkan soo socday sanado badan waxay iga muuqataa idadiila aad iyo aad u wacan oo u wanaagsan jawxa ku saabsan waxay iga muuqataa idadiila ku saabsan bulshada ama ummadda ay madasho waxaa idadiila iga muuqataa dhalinyaro aanan joogin waagii la bilaabay jawxa oo maanta joogto oo runtii taariikhdan horay u soo gudbani doono waa dhaxal aanan runtii yarayn waayo jiilba jiilka ka dambeeya haddii uu u sii dhiibo dadka iyagii u dhintay hawshani runtii qabriga si fiican bay u qabanayaan ilaahay jannada ha ka waraabiyo dhammaantood waxaa runtii muhiim inoo ah inaan ogaanno hadafka la leeyahay iyo habka loo socdo waxaa muhiima in la ogaado in loo sii dhiibi doono jiilka dambe oo horay u sii wadi doono waxaa muhiima inay cududda ay saaran tahay cududda ay saaran tahay olajeeddadan olajeeddada ay leedahay jawxa iyo principleska ay ku taagan tahay waxaa farxad inoo ah marka ogaanshaheedii iyo la socodkeedii iyo idadiilada ka muuqato inay noqon doonto mid taariikhda ku qoran waxaa muhiima hebel baa yidhi aan dhinta magacayga ma lahayin dhiman mayso jawxa magaceedana waa la wadayaa insha allahu tacaala waxaan leeyahay dadka halka isugu yimid inaanay u fahmin keliya xaflad loo yimid laakiin in taariikhda ay ka mid tahay maanta lagu sii qorayo idadiilada muuqato in laga wada tashanhayo marka aniga hadal badan ma lihi hadal badan haan ma buuxso marka aad baan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalkan oo la igu martiqaaday salaantan ku bilaabi lahaa waxa weeye